daawadayaasheena dunida ciyaaraha tiyub assalaamu calaykum kuna soo dhowaada muuqaal cusub isagu waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee lagu arkay xil ciyaareedkan bal suurtagal ay tahay inaad ku sifaysid mucjisada sanadkan iyadoo ayaan ka badbadis ahayn sidee maya ku dhihi kartaa isagoo ku dhaliyay 39 gool 29kiisa kulan ee uu ciyaaray oo ay ku jirto 6 hat-trick welina kama zuulin ka gudbidda sanadkiisii 19aad isagu waa Norwegian-ka Erling Haaland xidigan mar waliba uga jeedno in meesha ugu sareeya uu ka taagan yahay ciwaanada saxaafadda tan iyo bilowgii xil ciyaareedkan waxaana jilaa uu ka ahaa tartan kulul ee u wada galeen camaaliqooyinka Yurub ka hor inta aysan ku guuleysan kooxda Borussia Dortmund afduubashadiisa muuqaalkan waxaan idinkugu soo turjumi doonaa nolosha gaarka Erling Haaland sidee ayuu ku dhaliyay 9 gool hal kulan kaliya sababtii uu iskaga casilay waalidkii caalamka kubadda cagta sababihii fashiliyay wareegistiisii Juventus iyo Manchester United muxuu ugu maadeystay Klopp muxuuse u diiday Ernesto Valverde sida uu uga sareeyo Messi iyo Ronaldo iyo rikooradiisa cajiibka cidda uu ku daydo iyo waliba calaaqadiisa Solskjaer intaas iyo ka badan waxaanu wada jir ugu baran doonaa xubintan oo ka mid ah silsiladaha xaqiiqooyinka xidigaha oo had iyo jeer aad uga barateen bartiina dunida ciyaaraha tiyub fadlan nala daawo muuqaalkan waxa uu ku dhashay Erling Braut Haaland 21kii bishii July sanadkii 2000 magaalada Leeds ee dalka England waqtigii uu joogay halkaasi waalidkii waxa waajib kugu ah inaad ogaatid waalidkii inuu ahaa laacib kubadda cagta waxa uu xirnaa fanaanada kooxda Brighton ee dalka Norway bilowgiisii kadibna waxa uu wareegay kubadda Ingiriiska si uu u matalo kooxda Nottingham Forest Leeds United iyo Manchester City laakiin waayihiisu waxa uu soo dhamaaday kadib dhaawac halis ah uu kala kulmay xidigii Manchester United Roy Keane intii ay iswajahayeen Sky Blues iyo Manchester United sanadkii 2001 waxaana Roy Keane uu ahaa mid ku talagal u sameeyay sida uu ictiraafay ninka Irishka mar dambe sababa ku aadan cadaawada ka dhaxaysay labada laacib waalidka Haaland ayaa waxa lagu sameeyay qaliin laakiin waxa uu ahaa mid uu la dhibaatoonaya xanuuno kala duwan oo aakhirkii sabab u noqday inuu iska casilo ciyaartan sanadkii 2003 ima hooyada Haaland waxa lagu magacaabaa Grimarita waxa uu leeyahay walaal lagu magacaabo Asto iyo gabar la dhalatay oo iyana la yiraahdo Gabriel canuga Haaland wuxuu ka dhaxlay cishqigiisa cawska cagaaran waalidkii waxa uu soo muujiyay ahmiyad weyn yaraantiisa inay kubaddan u leedahay markii uu dareemay waalidkii mawhibadiisa kubadeed waxa uu go'aansaday tababaridda iyo waliba daryeelidiisa kadibna waxa uu geeyay naadiga Brighton ee Norway markii uu jiray da'da 6 sano Haaland akademiyada kooxda ayuu la ciyaaray kadibna wuxuu maray heerarka hoose ee kooxda ilaa uu galay kuwa ka yar 19 jirada xil ciyaareedkii 2015-2016 wuxuu dhaliyay 18 gool 14kiisa kulan uu ciyaaray sababa ku aadan tayadaasi goolalineed ee cajiibka waxa lagu soo daray kooxda kuwaad dhamaadkii xil ciyaareedkaasi waqtigaasi isagu kama gudbin da'da 15 jirka laakiin waayihiisu ma ahayn sidii la rabay waxa uu ka qayb galay 16 kulan waqtigaas intii lagu guda jiray ma uusan dhalin xitaa gool qura bishii Janaayo sanadkii 2017 wuxuu galay tijaabo cusub isagoo u wareegay naadiga Moda wuxuu la sameeyay bandhig cajiib ah isagoo soo ceshtay xusuustiisa goolalintaasi ee uu go'aansato in kooxda Red Bull Salzburg iyadoo u keento dalkaasi Austria horyaalka halkaasina uga ciyaaro waxaana ay go'aansadeen la soo wareegistiisa xil ciyaareedkii 2018 kaasoo ku soo biiraya bisha Janaayo sanadka 2019 halkaasi ayuu Haaland ka sii waday kacdoonkiisa kadib markii uu soo jiitay indhaha isla markaana caalamka indha daraandiriyay intii lagu guda jiray bisha January naadiga kubadda cagta ee Borussia Dortmund ayaa ku guuleysatay inay hesho adeegiisa dhawaan kadib tartan adag oo dhexmaray naadiyada waaweyn ee Yurub wareegistiisa Branilio Moda waxay ku timid rabitaanka ninka isku wadanka ee tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer waxaana tababaro u ahaa kooxdaasi waqtiga
sanadkiisii ugu horeeya Haaland halkaasi wuxuu ku dhaliyay 4 gool kaliya 20kiisa kulan. waqtigaasi Solskjaer wuxuu arkayay in weeryahankan isagu wax badan ay ka dhiman yihiin. Solskjaer waxa uu la soo baxay war la yaab leh isagoo leh isagu ma aha weeryahan cajiiba, muhubna kuma aha dhamaystirka weerarada, laakiin wuxuu leeyahay awood aan caadi ahayn oo xagga waxbarashada iyo in badan oo deganaansha. waqtigaasi kadib Solskjaer waxa uu go'aansaday in saacado kaligii gaar ugu yeelo tababarka, lagu daray baridda qaabka loo dhaqdhaqaaqo iyo xirfadda goolalinta. waxa uu siiyey talooyin badan. asbaabahaasina waxay ahaayeen kuwa ugu muhiimsan ee keenay inuu horumaro mustawaha Haaland. sidoo kale wuxuu dhaliyay sanadkiisii labaad 16 gool 30kiisa kulan ee uu matalay kooxda, halka ay cilaaqad wanaagsan ka dhex dhalatay laacibka iyo weliba tababarihiisa tan iyo waqtigaasi. kan dambe ayaa isku dayay taasi inuu kaga faa'iidaysto keenista Haaland naadiga Manchester United dhawaan. waxa uu isagu la xiriiray laacibka, bal warbixinada qaar waxay adkeeyeen inuu u safray qaabilaadiisa ka shakhsi ahaan iyo ku qancintiisa ka hor inta uusan fashilmin heshiiska aakhirkii, sababo aanu ku baran doono qaybta soo socota. naadiyada waaweyn ee Barcelona, Juventus, Manchester United, Real Madrid, Manchester City iyo Leipzig dhammaantood waxay ahaayeen naadiyo ahmiyad siinaya in safkooda ay ku soo biiriyaan Haaland, laakiin kuwii ugu waaweynaa ee tallaabooyin u qaaday wadahadalka kuwaas oo doonaya inay kula heshiiyaan waxay ahaayeen Juventus iyo Manchester United. waxaana qarka u saarmay heshiiska inay go'aamiso labada naadi midood ka hor inta aysan u burburin sababo tafaasiishan ku saabsan. Juventus waxay diiday inay laacibka siiyaan mushaar sanadeed kaasoo laacibku uu doonaya 8 milyan oo euro. Ima Manchester United iyadu ay waafaqeen mushaharka laacibka, laakiin waxay diideen inay jilbaha u jabsadaan dalabaadka wakiilka ninka lagu magacaabo Minariola, taasoo isagu matashay inay helaan isaga iyo waalidka Haaland dhaqaalo waali ah. marka heshiiska la soo gabagabeeyo iyo commission nisba ahaan dhigaya in mustaqbalka haddii laacibka la iibiyo iyagu dhaqaale ay heli doonaan, taasina lagu daray in qayb laga dhigo lacag jaban oo madaxiisa lagu burburin karo laacibka nisba ahaan heshiiskiisa. waana wixii ay diiday gaduudka magaalada Manchester, iyadoona halkaasi ay ku waafaqday Borussia Dortmund oo heshiiska ku go'aamisay qiimo guud 45 milyan oo euro. 20 milyan oo ka mid ah waxaa qaadatay kooxda Salzburg ee dalka Austria qiimaha xidigan madaxiisa dul saarnaa. 15 milyanna waxaa qaatay wakiilkiisa Minariola, halka 10 milyanna la siiyay waalidka Haaland. lagu daray laacibka oo mushaar sanadeed qaadan doona 6 milyan oo euro, kaasi oo gaari doonta 8 milyan oo euro marka uu galo sanadkiisa saddexaad ee heshiiska. laakiin lama kashifin qiimaha dhabta ee lagu burburin karo heshiiska hadda uu kula joogo kooxda libaaxyada Westphalia ee Signal Iduna Park. Borussia Dortmund waxaa cajiib ahayd in qaabkii ay u martay naadiga Borussia Dortmund helista laacibka marka laga tago dhinaca maadiga ee sheekada. waxaa jirtay arrimo kale oo sabab kaga yeelay Haaland inuu u saxiixo kooxda libaaxyada Westphalia. waxa ugu muhiimsanaa ku qancinta laacibka mashruuca kooxda kadib markii uu la kulmay mas'uuliyiinta kooxda, sida uu isaguba sheegay lagu daray in damaanad uu u haysto ka qaybgalka kooxda sifo line-up weliba koox ku caanbaxday bay'ad ku fiican soo saarista mawaahiibta, halka cadaadiska Dortmund hubaal ay tahay in badan inay ka yaraan doonto kii Juventus iyo Manchester United. waana waxa uu u baahan yahay laacib maraya daadan. tani waxay ahayd xiiladii markaasi Borussia Dortmund ay ku daftay laacibkan heshiiskiisa. dhowr warbixino oo iyagu Jarmalka ayaa waxay caddeeyeen in naadigan ay kula xiriireen barnaamijka WhatsApp-ka laacibkan, isla markaana ay ku dhiirigeliyeen inuu yimaado naadiga Borussia Dortmund. halka la tilmaamayo kooxda Jarmalka in gudoomiyaha naadiga Borussia Dortmund uu isagu shirkadda Puma ka dalbaday, taasoo maalgelisa Dortmund inay u soo bandhigaan laacibka dalab dacaayad uu sameynaa si cadaadis loogu saaro shirkadda Nike oo hadda laacibka heshiis kula jirta, si ugu yaraan haddii heshiiskaasi aan la burburin loo wanaajiyo lacagaha uu ka helayo. waqtigii uu joogay naadiga Brighton ee dalka Norway waxa uu aaday naadiga Hoffenheim ee dalka Jarmalka si imtixaan ugu galo, laakiin mushkiladu waxay ka timid maamulka naadiga oo aan ku qancin mawhibadiisa, waanay diideen la wareegidda laacibka. waxay ablahayd markii laacibkan bandhig cajiib uu la sameeyay naadiga Malta uu isagu helay dalab naadiyo waaweyn kaga yimid sida Juventus, Arsenal iyo Bayer Leverkusen, laakiin waxa uu ka fadilay dhammaantood dalabka naadiga Salzburg isagoo leh
way iska caddahay inaan dareemay ka raalli ahaansho maxaa yeelay naadi weyn xajmiga Bianconeri oo ay doonaysa la wareegisteedana rabta, laakiin waxaan arkay weli inay tahay waqti hore aadista halkaasi. Zalzburg waxay ahayd naadiga munaasabka iyo ahaa waqtigaasi. Gabagabadii wareegga guruubyada koobka UEFA Champions League xilli ciyaareedka naadiga Red Bull Zalzburg waxay u baahnayd inay garaacdo Liverpool si ay u damaanad hesho inay u gudubto wareegga xiga ee bugbaxda knockout-ka. Haaland ayaa waqtigaasi la soo baxay weeraryahankii Zalzburg hadal ka yaabiya caalamka kaasoo ku ballan qaadayo inuu reebayo Reds. waxaa dhici karta inuu doonay kalsooni inuu ku helo iyo dhiirigelinta saaxiibadii, isagoo leh waxaan filayaa ciyaartu inay ku dhammaan doonto natiijo dhan 3 gool iyo gool oo maslaxadda Zalzburg aniga ayaana dhalin doona goolasha saddexda. laakiin wax kasta uu qofku haminayo ma wada helo. boqorada Yurub ayaa muujisay wejigeeda xaqiiqiga, waxaana Zalzburg dhabarkay u saareen guuldarro 2-1 si Klopp tababaraha Liverpool waqtigaasi u yiraahdo uguna maadaysto Haaland isagoo leh difaaciinu waxa uu ahaa mid aad u xooggan. waxaan rumaysanahay in Haaland uu ogaaday in weerar Van Dijk uu hor taagan yahay ay tahay arrin ka duwan kuwa kale. Haaland waxaa lagu naanaysaa Zlatan Ibrahimovic-ka cusub marka laga eegayo meelo kala duwan oo isaga eg yihiin sida dhererka, booska ciyaarta, awoodiisa weerarka, laakiin farqiga ayaa waxa uu yahay in Haaland xidiga reer Sweden uu yahay kan uu kaga daydo caalamka kubadda cagta. hore ayuu kaga hadlay laacibkan isagoo leh waxaa jira in badan oo laacibiinta kubadda cagta kuwaasoo aan u eegay ku dayasho ahaan, laakiin Zlatan isaga ayaa midka ugu muhiimsan. isagu waa laacib cajiiba sida aniga oo kale, isagu waa Scandinavian. geesta kale wuxuu leeyahay shakhsiyad deganaansho, waxaana mar waliba diiradda uu saaraa waayihiisa tababarka, waana sababta ka hor istaagaysa gelidda cilaaqad dhanka dumarka. welina waxa uu arkaa inuu yahay mid aad u yar, isla markaana ay ku burburayso diiradiisa kubadda cagta badalkeeda ka fikiridda waxyaabo kale, halka uusan sidoo kale jeclayn shaabadaha. marka laga hadlayo waxyaabaha uu jecel yahay bannaanka cawska cagaaran, waxay balwadiisa ay tahay inuu dhagaysto musiga, daawashada aflaamta iyo waqti inuu la qaato qoyskiisa. bishii Janaayo sanadkii 2019 Barcelona ayaa doonaysay weeraryahan aan ku kalifaynin in badan oo qarasha, dood badanna aan ka qabin inuu fadhiyo kaydka si loogu nasiyo Uruguayaanka Luis Alberto Suarez Pistolero. kulamada qaarkii uu xidigan daal fara badan uu dareemo, sida ay ku warantay jariirada AS. waxaa loo soo bandhigay Haaland in kooxda ay qaadato iyadoo weliba loo sahlay qodobada heshiiska, laakiin maamulka Catalonia waa ay diideen inay la wareegaan laacibka kadib diidmadiisii Ernesto Valverde ka xujo ahaan inuu weli yahay mid yar khibradna uusan lahayn. waxaana ay ku degeen gabagabadii inay qaataan weeryahanka Kevin Prince Boateng kaasoo kooxda aan u ciyaarin ilaa iyo 4 kulan mooyaane. bilowgiisii ninkan iyo soo jiidashadiisu waxay ahayd bishii May ee tagtay koobka dunida ee ka yar 20 jirada, taasina waxay timid markii uu dhaliyay 9 gool oo kaamil ah. guushii xulkiisa Norway ee ka yar 20 jirada ay ka gaareen Honduras markaasoo 12 waxba ay ku xasuuqeen. bilowgii xilli ciyaareedkan iyo ka qaybgalka tartanka koobka UEFA Champions League markii uu la joogay kooxda Zalzburg wuxuu dhaliyay hat-trick kulankiisii ugu horeeyay tartankaasi uu noqdo laacibkii saddexaad ee ugu yaray hat-trick ka dhaliya taariikhda tartanka koobka UEFA Champions League kadib Raul Gonzalez iyo Wayne Rooney xidigihii United iyo Maringe, halka uu noqday laacibkii ugu horeeyay dhaliya hat-trick kulankiisii ugu horeeyay Champions League kadib Wayne Rooney sanadkii 2004 oo shayaatiinul xumur u dhaliyay. kadib markii uu dhaliyay waqtigaasi kulamo xiriira, waxa uu noqday laacibkii ugu horeeyay 20 sano ka yar ee dhaliya 5tiisa kulan ee ugu horeeya koobka UEFA Champions League goolal, halka uu haysto rikoor uu kaga sarreeyo xitaa Ronaldo iyo Lionel Messi. waxa uu ku dhaliyay 6 gool 3diisa kulan ee ugu horeeya tartanka. Ronaldo wuxuu u baahday sidaas inuu ku sameeyo 32 kulan gaarista goolkiisa 6aad, halka Messi isaguna u baahday in ka badan 16 kulan inuu ku xaqiijiyo nambarkaasi. kulankiisii ugu horeeyay koobka UEFA Champions League ugu ciyaaray naadigiisa cusub ee Borussia Dortmund kaasoo 2 gool uu kaga dhaliyay Paris Saint-Germain. waxa uu isagu ku noqday laacibkan kii labaad ee xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay Champions League
League ka dhaliya 10 gool kadib markii Champions League hore rikoor ugu yaalay wiilka Kylian Mbappe kaasoo isagu 13 gool ka dhaliyay halka uu barbareeyay xidigaha sanadkooda ugu horeeya Champions League 10 gool gaara kuwaasoo sanadkii 1958-59 isagu Just Fontaine uu ku dhaliyay 10 gool halka Claudio Salazar 11 ku dhaliyay 78-79. Sadio Mane iyo Robert Firmino ayaa 2017-2018 ku dhaliyay siday ku warantay shabakada Opta ee rikoorada diiwaangelisa. Emma Haaland isagu weli waxa uu haystaa 10 gool. Sheekadiisu Champions League iyo waliba tartamada kalena waxay tahay mid weli aan fara ka qodnayn. Magacaygu waa Cabduqaadir Qayska.